mas-uuliyiin ka socota shirkadda Pontus Marine ayaa soo gaadhay caasimadda Helsinki waxaanay la kulmeen jaaliyadda Finland. Kulankan oo ka dhacay Hotel Arton waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan. mas-uuliyiintani waxay qurba joogta Finland u soo bandhigeen qaabka loo sameeyay shirkadda Pontus Marine iyo sida looga mid noqon lahaa, iyaga oo sharaxaad dheeraada ka bixiyay sida ay ku bilaabmayso shaqadeedu ilaa 10 sano ee soo socda haddii Ilaahay idmo. mas-uuliyiintan oo kala ah Axmed Diiriye iyo Cismaan Xuseen oo ujeedada safarkooda ka warbixiyay waxay yidhaahdeen kunimi dalkan Finland magaalada Helsinki iyo agagaarkeeda waxa weeye in aanu dadweynaha degan halkan Soomaalida u sheegno mashruuca kambaniga ama shirkadda Pontus Marine Limited ay wado oo bilihii ugu dambeeyay aanu kala hadlaynay dadweynaha degan Scandinavian-ka hadday yihiin reer Denmark Sweden oo aanu dhowr meelood maalmo iyo Stockholm iyo Göteborg dadweynaha aragnay iyo Norway oo aanu iyaga u dhowda magaalada Oslo dadweynaha ku aragnay marka waxa aanu dadka u faahfaahineynay shirkadda Pontus Marine Limited iyo ganacsiga kalluunka ee ay wado iyo sidii ay dadweynuhu uga qayb qaadan lahaayeen mashruucaas oo dhawaan hawlgalkiisii bilaabaya. oo sida Axmed sheegay waxaan u nimid dalkan Finland in aan soo gaarsiino shirkadda Pontus Marine in si ay uga qayb qaadan lahaayeen dadweynaha reer Soomaaliya iyo reer Somaliland ba ee degan dalkan Finland. runtii si fiican loo soo dhaweeyay fikradana way nala qaateen dadkuna aad iyo aad ay ugu riyaaqeen in aanu afkaartan u soo bandhignay ilaahay waxaan ku rajaynaynaa in ay iyaga iyo shirkadaba u fududaato sidii ay xiriir fiican wada lahaan lahaayeen iyaguna ay maalgelin u samayn lahaayeen horumarka dalkuna caynkaasi ku jira. waxaa iyaguna sidoo kale meeshaasi ka hadlay Kayse Xinwaal oo ka socday shirkadda Dahabshiil, Xabiib Maxamed oo ka socday shirkadda Fastibay iyo xildhibaan Faysal Yuusuf, waxaanay dhammaantood soo dhaweeyeen mas-uuliyiintii shirkadda Pontus Marine iyaga oo bulshadana ugu baaqay inay ka qayb galaan saamiyada shirkaddaasi. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Ibraahim Rashiid oo ku hadlay afka odayaasha Finland soona dhaweeyay shirkadda Pontus Marine, waxaana mas-uuliyiinta Pontus Marine halkaasi ku qaybiyeen foomamka laga mid noqonayo shirkadda laguna iibsanayo sheeriska. Aadan Yuusuf Awaqli, On Cable TV, Finland.